bishu tahay 14 Oktoobar 2001 waxay ku beegan tahay maalintii aan ururnay hogaankii SSC sanadkii labaad waxaan Ilaahay ka rajaynayaa subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu ina gaarsiiyo sanadkiisa kale inagoo isjecel mida wada jira dowladda shirkii horseed ee halkan aan ku qabanay 2 sano ka hor wuxuu noo horseeday waliba jaaliyadana aad uga ammaan tahay wuxuu noo horseeday ammaan fara badan wuxuu noo horseeday sharaf wuxuu noo horseeday isku duubni wuxuu noo horseeday khaatimo wan wuxuu noo horseedi doonaa khaatimatu haddii la yidhaahdo jaaliyadeenan sharafta badan shirkii ama SSC ama hogaanka SSC ee saldhigga u ahayd way ku ammaanay hawsheeda waana hawl waxay noo taabanahay hawlo kale oo ah inaan kusii hawshan ka sii wadno ilaa aan ka helo riyooyinkeena ah inaan midnimo gaarno inaan horumar inaan dowlad dhisano inaan sida ummada kale u dhaqan tahay aynu dhaqanno waxay looga baahan yahay inaynu hawshaan ka wadno waxaan leeyahay hawl kaba daale weliba hogan hawshu waa bilow wax kastoo lagu dadaalo carab haddaan ahayn wax mustaxiil ama suuragal ahayn haddaynu intiinaas ku waafaqno inaynu hawlo gutanno waa ka meedhaleen way hore ugu jirtay haddana ugu jiraysaa taa markaan ka baxo qodobka labaad waxaan leeyahay shirkan soo socda ay walaalaha wadaan jiisigiisa inagu aan wadno waxaan rabnaa inaan sidii loogu talagalay ugu badbaadano hagar la'aan isku duubniya oo qaabqaadano hadday noqoto xoog dhaqaale iyo xogba inaan maadaana loo baahan yahay jaaliyadda